أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. ولا ليال waxaynu ku dhex jirnaa oo aynu bilowgeeda joognaa bishii barakaysneed oo Ramadaan. bishaan waxaan ugu talagalnay inaanu ku qaadano duruus ramadaaniye ah oo bisha ka hadlaysa munaasabooyinkeeda, maalmaha bishu ay socoto oo 30 maalmooda annagoo ku cabirayna haddii Ilaahay yiraahdo. duruustaas marka waxa weeye labadii casharo ugu horeysay ayaanu soo qaadanay oo ka hadlayay fardiyatu sawmi ramadaan, haddii ay tahay aayadaha qur-aanka ah iyo axaadiisa bacdigooda ayaanu soo qaadanay. hadda waxaanu halkan ku qaadanaynaa darsigeeni saddexaad oo ka mida duruusteena ramadaaniyada ah oo bishaan ramadaan aynu ugu talagalnay. waxaanu soo qaadanaynaa xadiis ayaanu soo qaadanaynaa oo laga wariyey saxaabiga la yidhaahdo nadar ibnu shaybaan. ninka nadar ibnu shaybaan la yidhaahdo ayaa waxa uu yidhi: qultu liabi salamata ibni cabdiraxmaan. ninka la yidhaahdo abi salamata ibni cabdiraxmaan ayaan waxaan ku dhahay xadisnii bishayin samictahu min abiika samicahu abuuka min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama laysa bayna abiika wa bayna rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama axadun fii shahri ramadaan. waxa uu dhahay ninka la yidhaahdo nadar ibnu shaybaan, waxaan ku dhahay ninka la yidhaahdo abi salamata ibnu cabdiraxmaan ayaan waxaan ku dhahay waxaad iiga sheekaysaa shay oo waxa weeye aad ka maqashay aabbaha oo waxa weeye cabdiraxmaan ah, aabbahaana uu ka maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. cid markaasi aabbaha iyo nabiga u dhaxaysa na aysan jirin oo waxa weeye aabbaha si toosa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugaga dhegaystay. xadiiskaasoo markaasi ku saabsan bisha ramadaan oo barakaysan ku saabsan. markaas wuxuu dhahay yuri: nacamhaa, waan kaaga warramayaa. xadasanii abi, aabbahay wuxuu igaga warramay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. qaala wuxuuna yidhi aabbahay: qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, ilaahay rasuulkiisa ayaa waxa uu yidhi: ina allaha tabaaraka wa tacaala farada siyaama ramadaana calaykum wa sanantu lakum qiyaamahu faman saamahu wa qaamahu iimaana waxtisaaban kharaja min dunuubihi ka yowmi waladatu ummuhu. rawaahu nasaa'iyu wa axmed. waxa uu dhahayo wuri: waan kaaga warramayaa, aabbahay ayaa ii sheekeeyey. waxaana uu yidhi: aabbihii si toosa oo uga qaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. rasuulku wuxuu yidhi u dhahay calayhi salaatu wasalaam: alla subxaanahu wa tacaala waxa uu farad yeelay, farada siyaama ramadaana calaykum. haddaad tihiin ummatulmuxamed, dadkiinaan muslimiinta ah, alla subxaanahu wa tacaala waxaa idinku farad yeelay bisha ramadaan soonkeeda ayuu idinku farad yeelay. xadiiskaas marka bilowgiisu wuxuu noo caddaynayaa sidii axaadiistii hore oo aanu ku soo qaadanay labadeenna casharo horo
casharkaanna waa casharkeeni saddexaad ama waa darsigeeni saddexaadi inuu ramadaan uu farad uu yahay oo ummadatan farad uu ku yahay ayaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku caddaynayaa oo ummadatan ilaahay subxaanahu wa tacaala ramadaanka uu ku farad yeelay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu dhahay farada calaykum siyaama ramadaana, ilaahay wuxuu idinku farad yeelay bisha ramadaan soonkeeda. macnaha waxa weeye bisha ramadaan ayaa laydinku farad yeelay sidii axaadiisi aanu soo marnaba sidaas oo kale ay u ahaayeen. wa sanantu lakum qiyaamahu, aniguna waxaan idiin jideeyey bisha ramadaan inaad quntaan ood u kacdaan ood cibaado aada samaysaan. macnaha waxa weeye wa sharactu lakum qiyaamahu waxay noqonaysaa sharactu lakum qiyaamahu calaa wajhi sunniyati. wa sanantudaanu waxa weeye waxaan idiin jideeyey, macnaha waxaan idiin jideeyey wej oo markaasi sunno ah oo aan markaasi farad idinku ahaynin. maxaa yeele ramadaanka haddii la sameeyo oo la soomo acmaasha dhexdiisa la samaynaayo oo salaatu taraawiix ay ka mid tahay, qiyaamu ramadaan uu ka mid yahay oo dhan, qiraa'atul qur'aan ay ka mid tahay, tahajudkii uu ka mid yahay, waxyaabahaas dhammaantooda wax markaasi sunno ah weeye. marka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay anigu waxa weeye waxaan idiin jideeyey inaad bishaas ramadaan aada u quntaan, ilaahay daacadiisa aada u quntaan wej oo markaasi sunnanimo ah. taas marka waxay ku caddaynaysaa shaygu haddii uu sunno yahay ousan farad ahaynin, shay markaasi tarkigiisu uu bannaan yahay weeye. maxaa yeele sunno waxaa la yidhaahdaa oo culummadu markaasi ay ku xadeeyeen maa yusaabu calaa ficlihi walaa yucaaqabu calaa tarkihi. shay waxa weeye haddii la sameeyo la yska sawaabinayo, haddii laga tagana aan la ysku ciqaabaynin. faralku waa sidaas cagsigeeda, waa sidaasi ka duwan. oo faral markii la yidhaahdo muxuu yahay? faralku waxa weeye maa yusaabu calaa ficlihi wa yucaaqabu calaa tarkihi. macnaha markii hadda aanu baranno waxa faral la yidhaahdo iyo waxa sunno la yidhaahdo farqiga u dhexeeya. ilaa hadda xadiiska waxaa iskula jira ramadaankii faralnimadiisa iyo acmaasha lagu samaynayo dhexdiisa sunnanimadeeda. maxaa marka farqiga u dhexeeya uu yahay? faralku waxa weeye maa yusaabu calaa ficlihi, wax haddii la sameeyo la yska sawaabinayo oo la yska ajir siinayo, wa yucaaqabu calaa tarkihi, haddii laga tagana la ysku ciqaabayo. oo qofka hadda bisha ramadaan asoon qof macduur aan ahaynin saa horuu soo marnay ka taga waa lagu ciqaabayaa. qofkii salaada ka taga waa lagu ciqaabayaa. qofkii sekada asoo maalkiisu nisaab gaara bixi waayo waa la ciqaabayaa. qofkii asagoo xaji karoo xaj ku waajibay xajkii ka taga waa loo ciqaabayaa. wax kasta oo faral ah haddii laga tago waa la isu ciqaabayaa, haddii la sameeyane waa la iska sawaabinayaa. laakiin sunnadu sidaas ma ahan. hal daraf waxay ka leedahay, faralkay ka leedahayo waxaa la leeyahay maa yusaabu calaa ficlihaa weeye. sunnada waxa weeye haddii la falo oo la sameeyo qowl iyo ficil waxay tahaba waa la isku sawaabinayaa oo ajir baa laga helayaa, walaa yucaaqabu calaa tarkiha. laakiin waxa weeye haddii laga tago la isku ciqaabi maayo. saasay marka ku kala duwan yihiin. rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxa uu leeyahay in allaha tabaaraka wa tacaala farada siyaama ramadaana calaykum. ilaahay nasahnaaye oo kor ahaayaye cadamadiisa iyo kibriyadiisa ilaahay kor ahaaday. bisha ramadaan inaad soontaan ayaa ilaahay idinku farad yeelay. anna waxaan idiin jideeyey si sunnanimo ah oo calaa wajhi sunniyati ah
inaad quntaan ood kacdaan ood cibaadaysataan ood acmaal khayriya aada samaysaan. kolkaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam faman saamahu wa qaamahu iimaanan waxtisaaban kharaja min dunuubihi ka yowmi waladatu ummu. arrintaas haddii la sameeyo maxaa laga helayaa? rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii sooma oo u quma bishaas ramadaan cibaadada sidii salaatu taraawiixi oo kale, tahajudkii oo kale, qiraa'atulqur'aanki, adkaartii dhammaanteeda oy markaa ay ka tahay iimaanan waxtisaaban, rumayn uu rumaynaayo oo waxa uu rumaysan yahay soonkan faralnimadiisa ayuu rumaysan yahay, haddana ajir ayuu dalbayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dalbayaa acmaasha uu samaynaayo. maxaa yeele ramadaankii haddii aanu soonno faral ayuu nagu yahay, daacada aynu samayhayno oo salaatu taraawiixi ay ka mid tahay oo hadda shacaa'irta ramadaanka gudihiisa la samaynaayo midda ugu weyn ay tahay qiraa'atulqur'aanki, waxaasoo dhan salaatu taraawiix insha allahu tacaala waa ku tegi doonaa. fadlaa-ishay iska leedahay, kayfiyada loo dukanaayo waa ku tegaynaa haddii alla yidhaahdo. iyo markaasi waxa weeye asagoo dalbaaya ajir ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dalbaaya. macnaha meeshaas maxaa kaaga cad? haddii ajir ilaahay subxaanahu wa tacaala aan laga dalbayn oo wuxuu lilaahi aysan ahayni waxba inaan lagu dheefayn. camal kasta oo la samaynaayo waxaa loo baahan yahay dar alla in loo sameeyo ayaa loo baahan yahay. haddaan wuxuu lilaahi aysan ahayn waxba lagu dheefi maayo, camalku si kastaba ha u farabato. maxay rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam iimaanan waxtisaaban. waa markii ramadaankii la soomo, qiyaamkii lala yimaado oo markaa ay tahay iimaanan waxtisaaban ay tahay, rumayn la rumaynaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu ka sheegay, faralnimadii ilaahay faral uu ka dhiga soonka iyo jidayntii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu jideeyey daaco in lala yimaado. kharaja min dunuubihi markaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dunuubtiisa ayuu ka dhex baxayaa, dembigaa laga qaadayaa. ka yowmi waladatu ummuhu, dembiga ayuu ka baxayaa isagoo lamid ah maalinta hooyadiis dhashoo kale. hadda qofku waad ogtihiinoo qofku haddii waxa weeye hooyadiis ay dhasho oo ifka adduunka uu yimaado, qof mukallafa ma aha. qofku waxau mukallaf noqonayaa markuu xaddulbuluuq ou gaaro ou qaan gaaro ayuu mukallaf noqonayaa. waxaa laga wadaa qofka markaasi dhashay oo hadda haatan waktigaan hadda markaasi saacaddaas la joogo dhashay, amase ha dhasho wakti horeba ha dhasho oo intuu xaddulbuluuq qofku ka gaaraayo qof dembila ma aha. markaasaa weliba waxaa laga sii dhigayaa maalinta hooyadiis dhashay, ka yowmi waladatu ummuhu, maalinta hooyadiis dhashay isagoo lamida ayuu dembiga ka baxayaa. marka macnuhu waxaa weeye faman saamahu musadiqan bifardiyatihi, qofkii sooma bisha ramadaan isagoo rumaynaaya faral inuu yahay ramadaanka soonkiisu iyo afdaliyadiisa inuu fadli badan yahay, dalaban liljri min allahi tacaala, isagoo alla subxaanahu wa tacaala ajir ka raadinaya, gufira dunuubuhu kulluhaa, dunuubtiisa dhammaanteed waa la dhaafayaa. hadda meeshaan culummadu way ta'wiiliyaan ka yowmi waladatu ummuhu, maalinta hooyadiis dhasho oo kale ayuu noqonayaa. su-aasha marka meesha ku jirtaa waxay tahay, hadda waxa weeye dunuubtii dhammaanteed miyaa bisha ramadaan soonkeeda lagu dhaafayaa? xadiiska daahirkiisu saasuu sheegaya. maxaa yeele qofku intaas hadduu sameeyo bisha ramadaan ou soomo, qiyaamka ou la yimaado, in dembigiisi la dhaafaayo oo habeenkii hooyadiis dhasho oo kale uu noqonayo ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam noo sheegaya. hadda marka dunuubna sideedaba markii laga soo noqonayo waxaa weeye kabaa'ir hadday tahay shuruuday iska leedahay, hadday xuquuqullaahi ay tahay oo saddexa, hadday xuquuqul aadami ay tahana 4 gaaraysa oo mashhuurahoo la yaqaano. markii axaadiisa baabu tawba laga akrinayo ayaa la akriyaa. haddaan wakti kale aan keli ka gaarno oonu haleeli karnana waanu ka warrami doonaa. marka hadda qofkan ramadaankii iska soomay
oo daacadii la yimiday sidaas maa dembigiisoo dhan lagu dhaafaya mase waa sidee xadiiskan waa la ta'wiilinaya ta'wiilka ugu badan oo a'immada culamaa ul islaam muxadisiinta iyo ay qabaan waxa weeyaa la leeyahay dunuubta saqaa'irta ah oo xuquuqda ilaahay ku tacalluqaysa ayaa loola jeedaa inuu ka tawba keena bayuusan u qasdin mar hadday dunuubtu saqaa'ir ay tahay waxa weeye saqaa'ir iyo kabaa'ir farqi baa u dhexeeya imaamka weyn oo maaragtay ibnu cabbaas xabru caalimul umma waxa uu markaasi kabaa'irta waxaa la dhaha u dhahay wixii xuduud ay ku soo aroortay ama waciid oo ku soo arooray sida masalan ba qiibadoo kale xantoo kale xuduudu kuma soo aroori laakiin waxaa ku soo aroortay waciidaa ku soo arooray dunuubta faraha badan dunuub badan oo waciid ku soo arooraa jira ayaa jirta laakiin waxaa weeye xuduud aysan ku soo aroorin wixii marka intaas ka soo harana waxaa la yidhaahdaa saqaa'ir ayaa la dhahaa saa'iru dunuub marka waxaa lagu dhaafayaa soonkaa lagu dhaafayaa weesaqaadkaa lagu dhaafayaa sadaqadaa lagu dhaafayaa laakiin kabaa'irta in markaasi loo qasdo oo markaasi shuruudaas lala yimaaday ku xihanta xadiiskana hadda sidaana uu leeyahay rasuulka calayhi salaatu salaamu daahirka xadiiska hadda kabaa'ir iyo saqaa'ir looma kala saarin sidaa markaasi jamhuurta culamaa ul islaam ay u badan yihiin waxaa laga wadaahaa la leeyahay meelo badan markii la fiiriyo dunuubta saqaa'irta ah oo xuquuqda ilaahay ku tacalluqaysa xuquuqul aadami aan ku tacalluqaynin ayaa lagu dhaafayaa soonkaas la soomay ee haddana waxa weeye daacada lala yimiday taas ayaa lagu dhaafaya oo saasaa loola jeedaa culimo badan oo hadda meelo badan oo gutegi doonaane laftirkooda aan yarayn waxay yidhaahdeen fadliga ilaahay iyo wusciga ilaahay fadligiisa waasic uu yahay haddii la fiiriyo xadiiskana hadda daahirkii sida tan uu yahay ilaahay fadligiisa waasaca haddii la fiirsho dunuub lamaba kala reebaya dheheen kabaa'ir iyo saqaa'irba waa lagu dhaafaya dadkaas laftirkoodu dad yar ma ahan laakiin dadka jamhuurta waxay u badan tahay in ta'wiilkaas xadiiska loo yeelo ilaahay fadligiisu waa waasac subxaanahu wa tacaala marka bisha ramadaan inaanu soonno oonu daacadeedii la nimaado oo aanu qiyaamkii la nimaado sidaan hadda meelo badan ugu tegi doonana waxaa weeye qiyaamu ramadaan si gaar ayaanu u qaadan doonaa faa'iidada uu leeyahay wax yar ma ahan ee bisha yaan lagu ekaanin in uun faralka kaliya markaasi lagu ekaado sababtoo ah hadda wacdiga kani waxa uu yimiday markii rasuulku uu dhahay calayhi salaatu salaam faman saamahu wa qaamahu iimaanan waxtisaaban markuu dhahay ayaa ka bacdi rasuulku wuxuu dhahay kharaja min dunuubihi ka yawmi waladat ummuhu xadiiskaas marka waxaa weeye waa xadiis imaamu nasaa-i ayaa weriyey sanadkiisuna waa wanaagsan yahay imaamu axmed ibnu xambalne musnadkiisa ayuu ku wariyey halkaas marka waxaa weeye xadiis waxaanu ku qaadanay fardiyatu sawmi ramadaana qayb ka ah qaybna markaasi waxa weeye markaasi ramadaanka acmaasha la samaynaayo oo sunnada ah qayb ka ah ayaanu qaadanay waxaan hadda markaasi aan u gudbaynaa fadaa'ilu soom soomka la soomaayo fadaa'isha iyo markaasi waxa weeye ajirka uu iska leeyahay ayaanu maaragtay qaadanaynaa marka hadda soomku wuxuu iska leeyahay fadaa'il fara badan ayuu iska leeyahay waxaa ka mid a fadaa'ishiisa xafiidun lisaaxibihi min aldalaali fi dunya waxaa weeye soomku qofka sooma waxa uu ka xifdinayaa ama uu ka ilaalinayaa baadi inuu ku dhaco adduunyada dhexeeda uu baadi ku dhaco aakhirana wuxuu ka ilaalinayaa cadaabu naar inuu galo naarta lagu cadaabo ayuu ka ilaalinayaa haddana waxa weeye soonku cibaado oo khaasa billaahi tacaala lam yucbad gayruhu bih waxa weeye cibaado ilaahay keliya u khaasa weeye soon ilaahay keyrkiis laguma caabudin salaad ilaahay keyrkiis waa lagu caabudo haddee
waad aragteenoo dadkii mushrikiinta ahay asnaam bay u sujuudi jireen, salaad u dukan jireen. xadiiska arrintaas ka warramayna waa noo soo socdaa. marka soonku wuxuu cajiib uu ku yahay, waa cibaado ilaahay kaliya u khaas. sababtoo ah qofku markuu saa'im yahay, qofka warqabtaahi ma jirto, inuu wax cunay inuu wax cabay cid ogaa kartaa ma jirto. laakiin qofka markaasi salaada markuu dukanaayo waa laga warqabi karaa, markii waxaa weeye jihaad uu gelaayo waa laga warqabi karaa, markii saka uu bixinaayo waa laga warqabi karaa, markuu xijinaayo waa laga warqabi karaa, oo intaasoo dhan waa la arkaa. laakiin soonku waxa weeye cibaada khaasa billaahi subxaanahu wa tacaala, waa cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis ku khaasa weeye. sidaas daraaddeed ayaysan suurtagal noqonin ilaahay keyrkiis in lagu caabudo. haddana waxaa weeye soonku qofka magiciisa ama xuskiisa ayuu kor u qaadayaa calaa ru'uusi lashaad. maalinta qiyaamo markii maxsharka la isugu yimaado ayaa qofka saa'imka ahay oo soomi jiray khalaa'iqdii oo dhammoo joogta ayaa waxa weeye magiciisa kor loo dhigayaa. horayna saan u soo qaadanay, haddana qofka jirkiisaa ku caafimaadayo cudurkaa looga caafimaadaya. soonka qofka u malaynaaya inuu dhibaato gaarsiinayo, soonka dawo ayuu noo yahay. xataa dadka dhibbiga ka shaqeeya oo waxaa weeye cilmiga oo dhibbiga oo markaasi dhakhtarnimada waa fahmi karaan. sababtoo ah caloosha bani aadamka sida badan waxaa cudurkiisu u badan caloosha ayaa u badan. sanadku waxa weeye waa 12 bilood. 11 bilood calooshaas marka wax lagu soo shubaayey oo lagu soo shubaayey, calooshu waxay u baahan tahay marka in la faaruqiyay u baahan tahay, oo waqti markaasi nasiina ay qaadato. xagga caqligaa lagu fahmi karaa calooshu inay nasiino qaadato ayay u baahan tahay. sababtoo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomankan iyo makhluuqan ilaahay ayaa tarkiibiyo isku rakibay. wixii masaalixdoodana alla subxaanahu wa tacaala isaga ayaa yaqaana. marka soonku maslaxadeenna weeye. wuxuu maslaxadeenna ku yahay caloosha waa la faaruqinayaa, way nasanaysaa. wixii 11 bilood wixii lagu soo shubaayey waxaa laga yaabaa maadooyin oo sun ah xataa inay ku jiraan, oo haddii waxa weeye bishaas ay firaaqo hesho inay markaasi ka caafimaado ayaa markaasaa imaanaysa. marka hadda soonku waaba kii laysku dawaylahay. dawo markaa raadinaysid, soonku waaba dadka muslimiinta ilaahay u dooray subxaanahu wa tacaala. marka soonku waxaa weye waaba dawo, ajirka ayaa lagu weyneynayaa, alla subxaanahu wa tacaala ayaa loogu dhowaanayaa. xadiisaa wuxuu ahay rasuulku calayhi salaatu salaam wuxuu dhahay, ucdiyat ummatii fii shahri ramadaana 5 lam yucdahunna nabiyun qabli. ummadayda waxaa la siiyow dha rasuulku calayhi salaatu salaam bisha ramadaan 5 oo aan la siinin nabi maaragtay aniga iga horreeyey. mid waxaa weeye haddii habeenka idaa kaana awalu leylati min shahri ramadaan, habeenka bisha ramadaan ugu horeysa markii la joogo, yanduru llaahu caza wajalla ilayhim, ilaahay subxaanahu wa tacaala addoominkiisa waa fiirinayaa. fiiradaanu fiiro khaasa weeye, nadra raxmatin ayaa la yidhaah. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa il raxmadeed au ku fiirinaya alla subxaanahu wa tacaala. waman nadara allaahu ilayhi lam yucadibhu abadan. ilaahay qofkau il naxariis ku fiirshana ilaahay weligiis cadaabi maayo. marka il raxmadeed ilaahay inuu nagu fiiriyo waxaanu ka helaynaa bisha ramadaan ayaanu ka helaynaa. soonka yaan laga harin oo ilaahay naxariisiisu iyo saas nagu dhaafin. midda labaad waxaa wey rasuulku calayhi salaatu salaam, midda labaad waxay tahay fa ina khaluufa afwaahihim xiina yumsuuna adyabu cinda allaahi min riixi lmiski. waxaa weeye afkooda dacarta ka soo baxaysa ama waxa xayaabada fuulaaya markay galabtii la gaaro maanta oo dhan soomnaayeen, ilaahay agtiisa miskigay ka caraf badanta. miskiga wax carfay ka caraf badanta. xadiiskaas noo ku tegi doonaa. midda saddexaad waxaa weeye malaa'igtu waa u dembi dhaaf dalbaysaa maalin kasta iyo habeen kasta. dembida waa u dembi dhaaf, tastakfiru lahum fii kulli yawm wa leylati.
مدى أفراد وحوية فإن الله عز وجل يأمر جنته إلهي جنديسة أيو أمرها يا مركز وحولها إلهي الجنة وكلها استعدي استدياري جنة وتزيني اسقرحي لعبادي أدو من كيغا صائمين وها سود دقايا إنا يكسر راحيستان الدنيا تعب كذا دبات هذا إلى داري وكرامتي دارتي هي كرامتي أو الجنة أي أصور راحة تجاني اسقر حيال اللي هذا ديار قلوب جنة دي والله سيد ديار قرينا يا وفق الصائم كا جنة دي سي والله سيد ديار قرينا يا مدى شراد وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام إذا كان آخر ليلة هبينك أقدم بي بشهر رمضان مركي لقيارو غفر الله لهم جميعا لما أنتو إلهي سبحانه وتعالى دمي وضعفيا نين مركا دادك كميدها يا رسولك وقودها هي ليلة القدر يا رسول الله هبينك سوحوي ليلة القدر جميعا مركا لا أوضع نمو سو أركي مي سو دادك الشقالها ألم ترى إلى العمال يعملون ضدك الشقارة ويشقيان فإذا فرقوه من أعمالهم شقادوا مركي دميان وفو أجورهم أجر كودي والله سينا شقادا نور بشقادي سدوا دمي مشاركي سوو قادنيا بشهر رمضان مركا داي نور دماتو مشارقادت كوي مشارقادت كاسنا وحاول نقونيا إلهي أدو من كيسو إنه حري أي نقونيسا ساروسو مرجر مركز سيداس أيا وحوي بشهر رمضان فلا إشهدوا وآدي وين أي تاي أو أمريكا يصير سوكو بكرين ولما مركا هذا عندي إلهي لهذا كاسوع وي ودرس جيني سدحات ودروسين رمضان كمذا درس أفراد أيام وكو قادة دونا فضائل الصوم برمضان هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.